Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam dhammaan walaalayaal Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan oo markale walaashin xabsi shiree kusoo dhawaada channelkayga wada maanta waxaan wadaa barnaamij kaloo cusub. Waxaan soo dhaweynayaa dhammaan walaalaha gadaal nooga soo biray. Waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan walaalahey igu xiran mar walba aan ka daalin inay fiirsadaan waxaan soo geliyo. Waxaan kaloo rajeynayaa inaa usii gudbin doontiin dad kale si uga faa'iidaystaan oo sheerta iyo like-tan aad ka bakhiilin aad u mahadsantiin jazakumullahu khair. Maanta waxaan rabay inaad la wadaago faa'iidada ay leedahay chia seeds haddii oo badanaa khadka ku jirtid waa aragteen aan u maleynaa oo ayaantan dambe aad ayuu wuxuu u noqday yacni wax oo dadka u hadal hayaan inta badan hadal hayaan dadka oo ku baraarugay inay sameeyaan miisaan dhimista iyo inay jirkooda caafimaadkiisa ka fikiraan. miisaan dhimis keliyana chia seeds looma isticmaalo oo waxyaabo badan oo faa'iido jirka ayuu leeyahay. Marka waxaan rabaa faa'iidadaas inaan la wadaago yaa cuni karo iyo inta cuni kartid yacni in la eg intee maalinta cuni kartaa ugu badnaan ama ugu yaraan. Marka chia seeds horta marka hore muxuu yahay? Chia seeds waa miro oo ka imaato dhir loo yaqaano Salvia hispanica. Dhirtan waxay ka tirsan tahay familiga mintiga waa dhir ayadana loo isticmaalo carfiska cuntada oo mintiga waxaa kaloo loo isticmaalaa nacnac kuleelka camal. Carabta waxay u yaqaaniin mintiga nacnac, Soomaali waxa lagu dhahaa nin kule ma garanayo, qofkii yaqaano commentiga igu la wadaago. Marka familigaas ayuu ka tirsan yahay. Waxaa kaloo dhirtan ay asalkeeda kasoo jeedaa Central America wadamada sida Mexico ama Guatemala. Waxaa la dhahaa mirahan waa miro yaryar oo madmadow oo iyo kafee iyo cadaan iskugu jiro. Waa miro aad u yaryar laakiin aad u faa'iido badan, biyahana aad u dhuuqa. Waxaa la dhahaa mirta halka mir oo chia seeds waxay dhuuqi kartaa 12 jibaar in la eg oo biyo ah yacni halkaas mir 12 jibaarkeeda oo biyo ah ayay dhuuqi kartaa halka mir. Marka jeel ayayna noqotaa markii biyaha ay dhuuqdo oo yacni jeel camal ay noqonaysaa wax oo sibibix camal ay noqonaysaa way fuuraysaa. Mirahan waxaa la dhahaa waxay leedahay faa'iidooyin badan oo caafimaadka. Waxay kaloo leedahay fiber aad u tiro badan oo fiber waxaa la dhahaa qolofta yacni cuntooyinka qolofta leh waxaa ka mid ah galleyda, digirta, qamadiga waxaas oo dhan markii inta aan la tumin ama la shiidin qolofta ay leeyihiin oo kore ayaa la dhahaa fiber. Fiberkaasna wuxuu aad u caawiyaa caloosha ama dheefshiidka oo wuxuu caawiyaa dadka calool istaaga qaba camal inay u fududeyso in calooshooda ay socoto. Waxaa kaloo uu leeyahay magnesium iyo calcium iyo omega 3 fatty acids iyo vitamin B1 iyo B3 vitamino badan ayaa ku jiro. Marka waxaa kaloo la dhahaa wuxuu caawiyaa inuu yareeyo riskiga ama dhibaatada wadne xanuunka la xiriirto. Wuxuu kaloo caawiyaa lafaha inuu yacni kor u qaado caafimaadkooda maadaama uu ku jiro calcium iyo magnesium uu ku jiro. Wuxuu kaloo leeyahay uu caawiyaa la dhahay inuu yareeyo dadka sokorowga qabo oo sokorta ayuu yareeyaa. Waxaa kaloo uu faa'iido u leeyahay la dhahay yacni caloosha sida hore aan u sheegay oo digestive system-ka ama dheefshiidka qofka ayuu aad u caawiyaa. Waxaa kaloo la dhahaa waxaa loo isticmaali karaa beddelka ukunta dadka haddii xasaasiyad ku qaba camal ukunta beddelkeeda waxay ku beddelan karaan chia seeds. Chia seeds haddaba marka ma isticmaali karaan hooyada uurka leh iyo hooyada naaska nuujinayso haa way isticmaali karaan. Wax dhibaato ah uu keeni karo. Muhiimadda waa inaan la iska badinin. Qofka waxaa loo oggol yahay maalintii 2 qaando ka badan inuusan qaadanin. Chia seeds-na sidee u isticmaali kartaa? Chia seeds-ka waxaa ku darsan kartaa cunto kasta oo aad cunaysid ama cabitaan ha ahaado, caano ha ahaado, khudaarta ku kor shuban kartaa, bariis ha ku darsan kartaa, mishaarida ku darsan kartaa, maxaa la dhahayay waxyaabo badan loo isticmaali karaa aad ku dhex darsan kartaa. Chia seeds waxaa kaloo la dhahaa wuxuu kaa saacidayaa inuu miisaanka uu ka yareeyo maadaama uu markuu fuuro oo fiber badan uu leeyahay caloosha markaad yacni cuntid uu ku dharjinayo oo waqti badan calooshaada uu ka bixinin. Qofka marka wuxuu ka ilaalinayaa inuu cunto qaadashadiisa ay yaraato. Cuntada haddaa iska yareysid it means adigana miisaankaaga wuu dhimayaa. Marka chia seeds-ka marka waxaa ku darsan kartaa cunto walbo badanaana
qaleel iyo qoyaan waa la isticmaali karaa, muhiimna maahan in la jajabiyo ama la kariyo, just iyadoo sidiisa cuni kartaa oo sidiisa lagu cuni karaa. biyana waa ku qasan kartaa, caano waa ku qarsaa, yogurt waa ku darsan kartaa. marka insha Allah nala wadaaga adii haddaa isticmaashay waa walaalkan dhageysana ama walaashan dhageysanayso. haddii aad faa'iido ku aragtay nala wadaag, inta soo faa'iido ayuu leeyahay. waxaan rajeynayaa inaad isticmaali doontiin idinka dhan, qofkii hore aa isticmaalina oo tijaabiyo. haddii aad wax ka tagana kuley idinkana commentiga igula wadaaga. aad aa u mahadsantihiin dhammaantiin. jazaakum allah khayr. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.